السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا شرفت بدن كسو دواada janalkeena ii sheekay sheekadan magaceeda waxaa la yiraahdaa boqorkii qayaanada badnaa iyo wiilkiisii daacadda ahaa. sheekadeena waxay ka bilaabanaysaa laba boqortooyo oo daris ahaa oo muddo dheer u dhaxeeyay dagaal kaasoo ay ku dhinteen dad aad u fara badan. markasta labada boqortooyo waxaa dhex mari jiray dagaal aad u qaraar oo ay dad badan ku hoobtaan. labada boqortooyo mid waa ay yareed wayna dagaal kululeed, ta kalena aad ayay u weyneed waxayna dhibaato kala kulmi jirtay in ay qabsato boqortooyadaas yar maadaama ay dagaal kululeed. boqorka boqortooyada weyn aad ayuu uga xumaa in uu qabsan waayo boqortooyadaas yar. maalin maalmaha ka mid ah ra'iisul wasaarihiisa ayuu u yeedhay wuxuuna ku yiri: mudane ra'iisul wasaare, waa maxay sababta aanu awoodi karo laanahay inaan qabsano boqortooyadaasi liidata ee ciidanka yar haysata? ra'iisul wasaarihiisii oo u jawaabayana waxa uu yiri: mudane boqor, waan ka xumahay in aan sidaan ku dhaho. boqortooyadaas wadada galaysa aad ayay u xun tahay. waxaa ka sokeeya kaymo iyo dhul saxara ah, marka waa ay ku adag tahay ciidanka in ay si dhaqso ah ku gaaraan halkaas. boqorkan wuxuu aad uga fikirayaa sidii uu ku qabsan lahaa boqortooyadaas yar. wax yar kadib waxaa ku soo dhacay qorsho aad ayuuna u qoslay. boqorka qorshihiisa wuxuu ahaa in uu wiilkiisa mursal u isticmaalo hab jaajuusnimo ah oo boqortooyadaas uu uga soo gudbiyo xogaha. boqorka wuxuu diyaariyay hadiyado fara badan si uu heshiis ula galo boqortooyadaas yar. sidoo kale boqorka wuxuu diyaarsaday qorsho uu boqorkaasi uga doonto gabadhiisa si uu ugu guuriyo wiilkiisa mursal. mudane boqor, waxba ha shakin. waxay la tahay in muddo aan dagaalameynay haddaanan labada boqor. dadka labadeena boqortooyene aad bay ugu rafaadeen dagaaladaasi. sidaad og tahay aniga waxaan dhalay wiil, adigana waxaa dhashay gabar. ka waran haddaan isku darsano wiilkeena iyo gabadheena kadibna halkaasi aan kusoo gabagabayno colaadii muddada dheer ee naga dhexaysay oo aan yeelano xiriir aad u wanaagsan. boqorkii kale oo niyadda iskala hadlayana waxa uu yiri: xiriir ah maxay tahay qorshahan? ma sidaan ayaa la wanaagsanaatay? ugu dambeyntii boqorkii waa uu ogolaaday wuxuuna yiri: mudane boqorow, arrintan waxay naxariis u tahay dadka ku nool labada boqortooyo. waan idinka ogolaaday arrinkaasi, laakiin waxaan wataa hal shardi. gabadhayda Alisa halkan ayay caan ka tahay tan iyo markay ay dhalatay, meel kalena ma garanayso. markii la guursaday kadib gabadhayda waxay ku khasbanaan doontaa in ay u safarto dhul aad u dheer oo ayna garanaynin. arrinkaasina ma aha mid ani ila wanaagsan. waxaa ila wanaagsan in uu arooska ka dhaco boqortooyadan, ayada iyo mursalla ay halkan isla degaan, sanado kadib ay u guuraan boqortooyadaas kale. sidee kula tahay adiga boqorow? arrintaasi wax dhib ah kuma qabo. muhiimadda ugu weyn waa in wiilkii gabadha ay isguursadaan ee si wada jir ah meel ugu noolaadaan. boqorkii boqortooyada yar wuxuu aad ula yaabay sida dhaqsada ah ee uu u aqbalay shuruudiisii boqorka kale. maalintaas wixii ka dambeeyay mursal iyo Alisa waxay bilaabeen in ay aad u sheekaystaan, si wanaagsanna ay isu bartaan. waxay u muuqdeen labadooda kuwo aad isu fahmay, markastana aad u sheekaysta. sidoo kale boqorka boqortooyada weyn mursal aabihiis wuxuu joogay boqortooyadan kale ilaa maalinta ay ka dhaceysay xalfadda arooska. maalin ka hor xalfadda arooska ayaa mursal waxa uu kusoo booqday aabihiis qolka uu ku nasto, wuxuuna arkay aabihiis oo si weyn halkaas ugu sugaya. isagoo aabihiis la hadlayana waxa uu yiri: aabo, ma halkan ayaad igu sugaysaa? mursal, ma og tahay micnaha arooskan oo ugu fadhiya boqortooyadeena? arooskana soo kuma saabsano in lagu hagaajiyo xiriirka labada boqortooyo u dhexeeya laguna baabiyo colaadda. runtii aad baa ii niyajibisay adiga. waad og tahay in askar fara badan oo boqortooyadana ka mid ah ay ku baabi'een dagaalka u dhexeeya labadeena boqortooyo. waxaa lagaga baahan yahay inaadan iloobin arrintaasi. qorshaha aan kuu dirayo waxa weeye inaad soo ururiso dhammaan dukumentiyada militari iyo difaac ee boqortooyadan kale. markaad soo ururisana kadib inaad aniga gacanteeda soo geliso. laakiin aabo, maya waryaa, waa inaad ogaataa oo aad xusuusnaataa inaad noqon doonto boqorka mustaqbalka. sidaas daraaddeed waa inaad aad uga taxadartaa boqortooyadeenna.
waxyaabaha la xiriira jaceylka waa inaa meel iska dhigtaa soomaada garan haa aabo intaa kadib boqorka aad ayuu u qoslay goobtina waa uu ka dhaqaaqay wada sheekaysigii dhex maray boqorka iyo wiilkiisa mursal waxa ay ku noqotay mid uu aad ula walwalay mursal markii uu arkay saaxiibtiis Aliisa waxyaabihii kaloo dhan meel ayuu iska dhigay maalintii labaad xalfadii arooska ayaa ka dhacday qasriga boqortooyada yareed halkaasoo mursal iyo xaaskiisa loogu sameeyay xalfad qurux badan arooska kadib mursal iyo Aliisa waxay isla qaateen waqti aad u qurux badan aad ayayna isu sii jeclaadeen waxayna u muuqdeen kuwa aan la kala fogeyn karin si kastaba ha ahaatee mursal muuna iloobin dardaarankii aabihiis maalin walba wuxuu ku mashquulsanaa si uu u ururiyo xogta boqortooyada sidoo kale wuxuu aad u dhageysan jiray hadallada ay ku sheekaysanayaan saraakiisha ciidanka si uu halkaasi uga ururiyo xog fara badan si tartiiba wuxuu aad u dhexgalay dadkii ku noolaa boqortooyada intii uu hawshaas waday wuxuu ururiyay xogo aad u fara badan dhanka kale wuxuu aad u sii jeclaaday xaaskiisa Aliisa inkastoo ahayd Aliisa gabadh aan waxba kala socnin arrimaha meesha ka dhacaya mursal kumuuna fikiraynin in labada boqortooy arooskan kadib ay dhex mari doonto wax dhibaato ah mursal oo niyadda iskala hadlayana waxa uu yiri haddii uusan aabahay ii dir lahayn shaqadan adag kuma jiri lahayn dhibaatadan ay haysata maalin maalmaha ka mid mursal wuxuu go'aansaday in uu dib ugu laabto boqortooyada aabihiis sidoo kale wuxuu go'aansaday in uu soo gudbin wax xog ah oo ku saabsan boqortooyadaas kale dib miyaa u soo laabatay wax dhibaataa miyaad kala soo kulantay safarkaaga aabo aad ayaan u wanaagsanahay hagaag aawo shaqadaan kuu diray aabo weli waan isku dayayaa dadaalkiina waan wadaa hase yeeshee ma ahin arrinta inay u fududahay sidaan u maleynayay dadka boqortooyada ima aaminsana xog fara badanna weli maan helin hagaag qolkaaga aad oo iska naso waan iska sugi karaa arrintaasi laakiin mar kasto ereyadeyda ama dardaarankayga xusuusnoo danaha qarankeenna mar kasta waa inaad ka hormarisaa arrimaha kale oo dhan waad ifahantay ayaan u malaynayaa waayahay aabo halkaasa inoo joogto sheekada qaybteedii koowaad